inaan rumaysannahay ayaa sii xoogaysanaya. markii horeba waaba ogeynba, waman asdaqu min allahi qiila, ilaahay subxaana wa tacaala wax ka run badan ma lahan, rasuulkiisana wax ka run badan ma laha. in huwa ilaa waxyin yuuxaa, waxa rasuulku uu sheegaya waa waxyi. taasi waa bishaaro waay. waxaan rabaa marka in darsiga maanta aan ku daro, haddaa xasuusataan 2 qodob aa noo harsaneed. waxaan ka hadalnay xadiiskii, waxaan sharxaynay rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, udcuu laha wa antum muuqinuuna bilijaaba. sababtoo ah dikri badan aan soo barannay, dikrigii faraha badan aan soo barannay waa kusoo celinaya mar kale dadka nala joogin. dikrigaasi maalin kasta waxaan idin xusuusiyey inaad akhrisataan inta ugu badan aad gaarsiin kartaan. marka waxay noqonayaan 1,100 salaada subax kadib. 1,100kaasi waxaan ka hadalnay dikrigaasi oo aan soo akhrisanay. waxaa ka mid aan soo baranay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar, waa 4 waa intaasi. laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir, waa 5. mid walbo qisada ay leedahay iyo macnaheeda waa soo sheegnay. 6 allahuma salli wasallim calaa muxamed, haddaad gaarsiin karto 100 ilaa 1,000 maalin walbo, waa soo sheegnay fadliga ay leedahay iyo qofka raadka ay ku yeeranayso noloshiisa iyo nolosha ilmihiisa. 7 laa xawla walaa quwata ila billah. 8 xasbuna allah wa nicma alwakiil. 9 laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin. 10 astaqfir allah. 11 subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi alcadiim. raali hada laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin. 11kaasaan soo barannay oo ducooyin oo dikri ah inaad ku celceliso maalintii. meeqa jara ku celcelinaysaa? waxaa ku celcelinaysaa inta aad karto, laakiin markaad sii badisaba karaamaad ayaad arkaysaa oo shaki aan ku jirin. laakiin waxaan sheegnay xadiiska marka ducada aan sheegaynay, adkaarta markaan akhrinayno, qofku waxaa la rabaa qalbigiisa inuu joogo. marka tan koowaad waxaan dhahnay 3 haddii la helo qofka ducadiisa waa la aqbalayaa. ama ilaahay ha u soo dedejiyo, ama ilaahay dib ha u dhigo. dib u dhigista waa 2 waayo. adduunka ducadaasi ilaahay uu ku siinaya, uu kuu jawaabaya, ama dib waxaa ilaahay uu kuugu dhigayaa maalinta qiyaamaha inuu kugu bedelo wax ka khayr badan waxaa weydiisatay. sababtoo ah ilaaha og waxa aa weydiisanaysid inuu khayr kugu jiro iyo inuu shar kugu noqo. shar ayuu kuu noqon karaa. ilaahu business aan furanaya, waxaan rabaa inaa iga dhigto millionaire. haddii business aa furato oo millionaire aad noqoto, oo markaa millionaire noqoto khamro cab aad noqonaysid, markaa millionaire noqoto oo aad goynaysid qaraabadaada, markaa millionaire aad noqoto lacagtaada aad u isticmaalaysid dadka in lagu gumaado, sida hadda maaragtay imaaraadka oo kale. lacag fara badan ay haystaan. ilaahay wuxuu usoo saaray dahabka madow oo loo yaqaano bensiinka ama gaaska. wixii gaas ah ilaahay uu siiyey. maalina waxay ahaan jireen aa layidhi dad fuqara ah aan waxba haysan. taariikhda waxay tilmaantay in soomaalida oo annaga ah aan ahaan jirin, ama odayaasheena hore dad dhaqaale haystay ahaan jireen. marka waddamadaasi sacuudiga iyo imaaraadka iyo ayaa zake ay geyn jireen. annagaa zake siin jirnay iyagoo dhibaataysan oo gaajaysan. iyaga maanta inay noo soo gurmadeen nagama naxaan, bilcagsi waxay khatar ku yihiin jiritaankeenna. badaheenay rabaan inay qaataan. waxay kala googoonayaan dadkii siyaasiyiinta ah ay kala qaybqaybiyeen. waxaasoo dhan oo dhib ay nagu samaynayaan waddamadaasi. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xusuusinayaa maalin inay jirtay oo gacanteenay u baahnaayeen. maanta iyaga gacantoodan u baahannahay iyo garabkooda inay midnimadeena ka shaqeeyaan, nabaddeena inay ka shaqeeyaan, dowladnimadeena inay ka shaqeeyaan, madax banaanideena inay ka shaqeeyaan, laakiin kama shaqeeyaan. laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wax badan uu og yahay. iyadoo kooban marka waxaan ula jeedaa, waxaan dhahnay 3 loo baahan yahay haddii aad rabto ducadooda in la aqbalo. 3 waa inaad la timaada. 1 yaqiin, waa ka hadalnay yaqiinta. qisooyin waan ka soo sheekeennay. yaqiinta waxa waaye in aad yaqiinsato ducadaasi inaad helayso oo aadan shakin haba yaraatee. 99% maaha yaqiinta. 100% inaad yaqiinsato markaad dhahdo ilaahu waxaasaan rabaa, ilaahay wuxuu ku siinayaa. hadda muu ku siinayaa, beri muu ku siinayaa, ma lagaa soo daahinayaa, ilaahay dib muu kugu dhigayaa aakhirada, ma wax kaluu kaaga celinayaa? taas ilaahay isagay u taalaa. wa antum muuqinuuna bilijaaba, saas waa macnaheeda. xadiiskaas wuxuu leeyahay
إن الله إلهي سبحانه وتعالى عفوا إلهي ما أجيبه دعاء كإيمانيسه من غافل لاهن قف مقن أو إمارة مسكعيسة أن جوجل مركو دعي سنايو مركا هالكا حان كقلينا مركا تنكواد ويقين تلاوض حان كقلينا قفك إنو حاضر أهاضو قلبك إنو حاضر أهاضو مركا ليس يا الله يا الله مركا لهيسيد إن حاضر أهاته أو إلهي سبحانه وتعالى قلبك أبو كبوح أو وحول بأدون لحريره مركاسي هالبانتو قصة حاجرته النبي موسى عليه السلام نين قعنت تاغي اويني الحاح وسميناي الحاح وحواي مركا كعل علينيسد إلهي وجعل ياهي إن دعاء لغو العليو إلهي آذ وجعل ياهي دعاء إن لغو العليو مركا دعاء داسي مركا كعل علينيسد هذا يا الله يا الله waxaad isticmaalaysan waa sheegayna haduu ilaahay yiraahdo maanta kama hadlayno qodobka saddexaad waxa waaye in xalaal quuto aad ahaato si ducadaada lagaaga aqbalo aayadaheeda maaragtay kullu min tayyibaati ma razaqnaakum tayyibaadka waa xalaal wax wanaagsan oo xalaasha cuna waa macnaheeda waa ka hadlaynaa waa u imaanaynaa tafaasiirteeda iyo tafaasiisheeda laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa qofka inuu goobjoog ahaado sayidina muuse ayaa wuxuu arkay nin gacanta taagayo oo oynayo oo qaylinayo ilxaax sameynayo ku celcelinayo yaa allah waxaas isi yaa allah waxbuu weydiisanayaa markaasi ayaa nabi muuse u naxay ninkii markuu u naxayaa wuxuu dhahay wallaahi aniga haddaan ahaan lahaa waxa aa weydiisanaysid horaan kaa siin lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa og ninkaas wuxuu yahay markuu saas dhahay nabi muuse ninkii u naxay nabi muuse wax kale ma ahayn markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi muuse ula soo hadlay كليم الله أيها إلهي أيات توصل هذا جري وحوده موسى نينك عاد لهذا ما ركتي واصين لها وحرب مركبة هرت أنا كاد ديخسن السن إلهي إنه أوجهي موسى أوجها ولا جذا إلهي سبحانه وتعالى إنه يهي الغني إنه يهي الكريم قعن فرن أو ما ركتي الباسط وايه كره نقابة يا كره إنا نقابة أمالينا يا دو إله يراده ودذالا إن شاء الله وايه هذا سيء أمه غليسان عدكي أنا كل إنا قل أم إنا كجرت عنه إليه وقل كجرا قل لي حساب كجرا قل لي حساب كجرا وايه ودذالا إن شاء الله marka ninkii wuxuu yiri nabi Muuse alayhi salatu wasalaam muxuu ku celcelinayaa ninkii muxuu ku celcelinayaa ya Allah nabi Muuse wuxuu dhahay aniga aan ahaan lahaa waa ku siin lahaa markaas ilaahay u jawaabay ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala Muuse ilaahay ducada kama aqbalo ruux qalbigiisa uu maqan yahay lidalika culimada waxay dhaheen waxa laga qaadanayaa maaragtay qisadan in qofka mu'minka ah oo ilaahay wax weydiisanayo in qalbigiisa uu joogo qalbigaaga uu xaadir ahaado marka ilaahay weydiisanaysid marka culimadu waxay dhaheen marka waxyaalo kaalmeenaya jiro qofka si ducadiisa loo aqbalo maxaa kamid ah waxyaalaha kaalmeenayo waxaa kamid ah saddex waxyaalood ayaa kaalmeenaya qofka ducadiisa in la aqbalo kow waxaa kaalmeenayo xaaladda waxa waaye qalbigiisa inuu joogo oo khushuuc qofka uu sameeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu hor joogo oo wax walbo makhluuqaad la xiriiro dhan inuu gacanta uu kala baxo inuu halmaamo intuu duceysanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaliya uu xusuusto taas waa kow laba ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyada uu jecel yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyadaas ilaahay inuu ku tuugo saddex xaaladda waxa waaye maalan in oo salaada markii salaatuleylka oo kale waa xaalad waay waqtiyada ugu fiican oo ilaahay ducada u aqbalo salaatuleylka ka mid ah waa idin soo sheegay maaragtay haddaa xasuusataan gabar waxaa jirto oo maaragtay xubnaheeda oo dhan aan shaqayn jirin oo sariir jiiftay oo iska tiilay laakiin waalidkeedii wuxuu maqlay waqtiga iyo xaaladaha inay raad ku yeelanayso ducada in la aqbalo marka habeenkii 27 bishii Ramadaan
ayaa aabbihii wuxuu sameeyey ciddii o dhan wuxuu dhahay soo wada kaca waa waqti ahaan wuxuu doortay habeenada oo qur'aanka lagu sheegay suuratu alqadar oo in habeen fadli badan uu yahay oo la tuhmayo 27 inay tahay duco kastana la aqbalayo kow haddana wuxuu doortay waqtiga ilaahay uu leeyahay ilaahay wuu soo degaa markaasuu ilaahay wuxuu weydiiyaa dadka yaa wax weydiisanaya aan siiyaa yaa dembi dhaaf weydiisanaya aan u dembi dhaafaa yaa dhibaato haysato dhibaatada aan ka qaadaa yaa kurba haysato kurbada aan ka qaadaa yaa culays saaran oo culayska aan ka qaadaa ilaahay intaasuu ku celcelinayaa waqtigaas waa marka waqtiga ay soo wada kaceen haddana wuxuu isticmaalayay marka ilaahay subxana wa taala magacyadiisa marka waxaa jiro oo caawa aan kusoo gabagabaynaynaa qaybtan al-ism al-acdam magac weyn oo rasuulku uu sheegay magacaasi haddii ilaahay subxaana wa tacaala aad ku bariso oo aad ku tuugto ilaahay ducdada wuu aqbalayaa sir waaye ayay dhahaan culammada qaarkooda laakiin ma la ogyaha waa la ogyahay marka sir waaye waxay ula jeedaan dadka isticmaalkooda dadkaan isticmaalin laakiin waa la ogyahay dadka badanaa way yaqaaniin haddaa u sheegto waa maqlayu ku leeyahay qofkii laakiin magacyadaas waxaa la yidhi hal magac laguma soo ururin karo intaan taas marka magacyada aan sheegin oo familkan ay isticmaalayeen waxaan rabaa inaan idiin sheego markay soo wada urureen waqtiga 27 ee tahay bil ramadaan ee tahay waqtiga salaatuleylka oo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo degaayo waqtigaas oo ummadda uu weydiinayo addoommada uu weydiinayo waxay rabaan u siiyo waqtigaas iyadoo soo istaagay hal mar aabbihii gacanta uu taagay ilmihii gacantay ka wada taageen salaadiyaa lagu wada jiraa ilaahu wuxuu leeyahay yaa allah ilaahu yaa mannaan yaa badiica asamaawaati waa magacyada asmaa al-ism al-acdam oo culummada isku khilaafeen waa sheegi doonaa isagoo ilaahay saas u tuugayo waqtiga fiiri salaaday ku jiraan fiiri qiyaamuleyl waayo salaadaasi fiiriya waxaa kaloo fiirisaan maaragtay magacyadii ilaahay uu jeclaa ay ku tuugayaan markaasi kadibna oo rasuulkuna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam kolay ilaa 7 magac meelahaasaan idiin sheegi doonaa ilaahay haddii lagu tuugo ducada uu aqbalo oo axaadiis ku soo aroorta laakiin waa soo ururinayaa hal xadiisaan gooni u sheegayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin wuxuu arkay nin dhahayo allaahumma innii as'aluka fiiri wuxuu leeyahay innii as'aluka ilaahu waa ku weydiisanayaa biannii ashhadu annaka anta allah alladii laa ilaaha illaa ant الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد مركو هذا انت أصلحي أو النبي قنا أوم قلي وحولهي والله اسم الأعظم كدو عيستي إذا دعي به أجيب هدي لو دعيست إلهي وأقبله وإذا سئل به دعاء سدي وحلو يديستو إلهي سبحانه وتعالى أعطى وبحيا وحي لو يديستو مركو نينكي أنك شيكينا عدي ساس قعنتو أتاقاي oo gabadhooda sariirta taalay oo jirkeeda oo dhan xubnaheeda oo dhan aan dhaqaaqi jirin wax mucjiza dhacday wuxuu arkay wax soo socdo humaag ah ducadu ku jira ilaahu tuugaya wixii garabkiisa soo istaagtay markaasi kadib markii garabkiisa soo istaagtay wuxuu ogaaday gabadhiisii oo socotay inay ahayd waa qof aan socon halkan maxaa ku ogaanaysaa wax walba gacanta ilaahay ku jiraan wax walba ilaaha hayo cid kaloo aan wax weydiisanayna ma lahan maxaa dhacday markaasi waxaa dhacday odayga meeshuu sujuud ku dhacay ilmihii waa wada sujuudeen qoyskii oo dhan bishaaraa dhacday gabadhii waa sujuuday gabadhii waxay bilaabtay inay socoto gacmaheeda way dhaqdhaqaaqayaan dhagaheedii maqalkeeda wuu fiicnaaday carabkeedii waxaa la siinay raashinka waa la siin jiray hadda iyada wax cunayso intaasoo dhan goormay heleen ducada magacaasi waa ku soo celinaya al-asmaa al-acdam culummada magacyo kala duwanay sheegan al-ism al-acdam ana ilaan ducada waxay leedahay xadiis ayaa wuxuu leeyahay qofkii al-ism al-acdam ku ducaysto ducadiisa waa la aqbalayaa wixii rabana waa la siinaya wuxuu rabana waa la siinaya marka culummadu waxay dhaheen qaar al-mannaan badiica asamaawaati waa laba in badanoo culummada ka mid a ilaa bacd alculamaa culummada wax tarbiyeeya ee dhahaan jumhuur badankood culimadu waxay leeyihin alxayu alqayuum waa taas waaye al-ism al-acdam inaad dhahdo yaa xay yaa qayuum
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أتكو على عليس قارن وحدها المية دعاء ودعاء كجرتي تينكي دهايي أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وحدها سدح معك كجرة ماشي الله كو الأحد أو كلمة بقى إيوه الصمد سدح اسم مقع أو وين أيا الاسم الأعظم مقعي وينا مركا هالكاسي كورسين علماء قال كذا وحي كسو أروريان مقع وين أو إلهي لغبرية ومقع كستو أو مقعيد إلهي كمد لكن أرورسن معاني فربضا مركا أسوي حدا مقعيد أرورسن معاني فربضا وحاكمد الحي وحاكمد القيوم وحاكمد الله وحاكمد المنان وحاكمد الرحمن الرحيم وحاكمد الصمد وحاكمد الأحد رواية كلا جرت الواحد القهار انت اصلا مركا سو أرورسو إن كستو علماء قاركو دهان الحي القيوم أيا أبضا وهي سورة البقرة الوشيغي آية الكرسي كجرتا سورة آل عمران وآية وهريسو آية وهريسو أي كجرتا الحي القيوم هي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم إلهي سبحانه وتعالى سدح مال أيا لغسو العليي سر أيا كجرتا لأن ماشس لغسو العليي وحان هيا قصر ومردو دعضي شل دعي oo qofkii ku dhacay maaragtay dhaawac weyn gaaray isla markaasna qofkii waalidka ahaa gacanta kor u taagay oo waqtiga qiyaamuleelka inuu soo kacay uu ku celcelinayay yaa hayyu yaa qayyuum yaa hayyu yaa qayyuum yaa hayyu yaa qayyuum mucjiza dhacday qofkii shilkaas ku dhacay subaxdeedii habeenkii salaatu leylka subaxdeedii iyo ducadii hadan uu akhristay ducadii ahayd أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هبين كلنا كوع العناية صلاة يذكري يدعو صباح بي وحاسوك عي قفك شركة كل عي أو وحبا أنقبن إلى حق سنادنا مرك وحانرن دروس تانرن أكوع العناية وأربعة أنفسنا نحيت المامسة قفك بقول إلهي إنه سديبه قفك بقول إلهي إنه بريء قفك بقول إلهي سبحانه وتعالى مقعيديس إنه كبريء مرك علماء قال كذا واحد ده إن لسكوك نافع عن مقعيداسي سير لسكوك أنا مرك حد لا يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا أحد يا صمد يا قهار يا منان يا بديع السماوات والأرض يا رحمن يا رحيم انتاسي وانت علماء كلاتة المامين هذا مال اسوكو كانتو وإلهي آد كتوكتو إلهي سبحانه وتعالى دعاء ذي وأقبرايا إلهي سبحانه وتعالى الباب ذو كفرايا إلهي سبحانه وتعالى وحكسينا يا وحا ويزتي ويا النبي عليه السلام وحويري مقعاسي وين هدي إلهي لغبريو إلهي وأجيبيا هدي إلهي وح لغو ويديستو إلهي وحي وبحنايا مركا ولا وحان عدسانايا ميل والبا جوغان إن ما دام مشاكلات فربضان إن هيساتو أما قويس أنا نو هيساتو أما بزنس أنا نو هيساتو أما كوميونيتي أنا نو هيساتو أما ودن أنا نو هيساتو أما دولد أنا نو هيساتو أما سكة لغا هدان ودقو امتحان مسلمين تأدون كورن أي مرايان أو ما أنت مسلمين تضعف وين أو هيستو محان أمباهناهي دعاء جوغتا الدعاء رسولك وحيري عبادة دعاء وعبادة إلا علماء دعاء وعبادة وفضل بضان وايه بعض العلماء ساسي يرهدين دعاء يذكر ملك لا سوعي كرامين لا ملك لا سوعي كرام مركا إلهي سبحانه وتعالى أحسطه عفوا مركا إلهي سبحانه وتعالى أحسطه أو أحوي ديسته لبابا بفرق ما دحي صوته مركا إلهي أحسطه إلهي وحلاه فاذكروني أذكركم إلهي مركا وأمر واي يحصى مقعي كسو العليا وانت هذا أنبراني أوردن أو دعوين مركي إلهي سبحانه مالو بقى استعماله إلهي سبحانه وتعالى أفكار ونورنا يا قلبك إلهي ونورنا يا مسكح إلهي ونورنا يا دجاها نورا كسو بحايو ومعنى الوجهدو خير كليا دجي سنيسا إنها جوا نورا يا
khayr kaliyaa fiirinaysaa carabkaaga waa nuurayaa khayr kaliya ku hadlaysaa gacmahaaga waa nuurayaa xalaal kaliyaa ku shaqaysanaysaa cagahaaga waa nuurayaan xalaal kaliyaad aadaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmahaaga qoyskaaga gurigaaga wuu barakeenayaa marka maxaan u baahannahay inaan ku celcelinno al-isma al-acdam magacyadaasi oo kala duwan khaasatan tii nabiga si gooni uu u sheegay inkastoo kuligooda culamo qaarkood isku keeneen ay yidhaahdeen dhammaan wada isticmaal gacmaha kor u taag ilaahay subxaanahu wa tacaala ilxaaxana ilaahay wuu jecel yahay ku celcelinta aad ku celcelinaysid ilaahay subxaanahu wa tacala inaad weydiisato waxaa rabto caafimaad haddaa rabto haddaad maal rabto haddaad caruur rabto haddaad nin doon tahay oo gabar tahay ama haddaad wiil tahay oo gabar doon aad tahay intaasoo dhan ilaaha hayo wax walbo lilaahi mulku samaawaati waalard ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walboo ku jira caalamkan oo dhan makhluuqaadkoo dhan ilahay isagaa gacanta ku hayo isagaa weydiisanaysaa ilaahay waxaan kusoo gabagabeynayaa qisadii haddaa xasuusataan oo xusuusin iga ah oo ninkii oo lagu yiri muddo dhowr sana isaga xaaskiisa dhakhaatiirta ku takhasustay cilmiga dhalaanka markay u tageen uu yiri xaaskaagii adiga ilmo ma dhalaysaan saasuu yiri markaasaa wuxuu yiri lasta adi ma tihid alladii tuqariru haada adiga ma tihid kan waxaan go'aaminayo saas waa nin wuxuu ahaa ahlul iimaan ah ninkii dhakhtarkii ugu sareeyey oo dhakhaatiirtao dhan wakiil ka ahaa oo baara qofka xanuunka qaba oo aan dhalaynin ay u tageen marka waa meesha ugu dambaysay waay dadku waxay yidhahdeen adunku ninkaas ku dhahay ma dhalaysid markaasuu dhahay laysa huwa alladii asaga ma ahan kan arrintan go'aan ka gaarayo xagguu aaday marka meel kaleu aaday xagguu aaday cumruu aaday intuu aaday xaramkuu aaday xagguu aaday kacbaduu aaday goormuu istaagay salaada subax ka hor maxaa la yidhaahdaa qiyaamu leyl muxuu sameeyey gacmuhu kor u taagay muxuu ilaahay u sheegay ilaahu adaa ilmaha haayuu yiri intaas kaliya ma dhihin ilaahu kaas wuxuu sheegaya ma rumaysnuu dhahay wax adi aa sheegaysaan rumaysnahay ilaahay waa maxay alghaniy wax walbuu hayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay muxuu yahay alkariim deeqsi waa ilaahay subxaanahu wa taala waxaa weydiistuu ku siinaya ilaahaasaa wuxuu dhahay ilaahu adaa hayo wuxuuna codsaday intaan joogaa ilaahu subxana wataala rasuulkaagaa noo sheegay waana jiraa waa xadiis waxaa jira qofkii cumro aada oo u aado oo keliya ilaahay inuu weydiisto wuxuu rabo ilaahay wuu siinayaa ilaahay waxaa addoonkaaga wuxuu rabaa uu ku weydiisanayaa 3 wiil inaa isiisuu dhahay 3 wiil u weydiista markuu laabtayna xaaskiisa uuray qaaday 3 wiiloo isku xigee dhashay kadib ayaa dhakhtarku u tegay wuxuu yidhi ma xusuusataa uu dhahay wuxuu yidhi nacam wuxuu yidhi soo ma dhihin ma dhalaysid haa 3 wiil ila socotuu dhahay 3 wiil u waday wuxuu dhahay waa ilmahayga magacyadu saas ugu sheegay markaasaa wuxuu yidhi anaga meesha waa ka baxnay markaas talaq wax kuma hayno marka bini aadamka ha dhegaysan cilmi hadday hayaan xitaa ixtiraam cilmigooda laakiin xaqiiqda iyo cilmiga saxda ah ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya hayo huwa alcaliimu isagaa alcaliim ah marka waxaan kusoo gabagabeynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuuna waafajiyo dadka qaarkooda ma ducaystaan qaarkood hadday ducaystaana ma fiiriyaan shuruudaha ducadana hadday tay 3 shardiyo waaweynaa jiraan dhah waa sheegay shardiga koowaad inaad yaqiinsato shardiga labaad waxaan ku tilmaamay in aad khushuuc in lagaa helo ducada markaad ducaysanaysid khushuucaas waxaa hoos imaanayo xaaladaha hoos imaanayo waqtiga ilaahay aad tuugaysid qaabkaa u tuugaysid magaca ilaahay aad ku tuugaysid waa intii hadda maanta aan soo qaadanay kadib markaasi qisas la xiriira dadka xalaal quutayaasha ah oo ilaahay ducadooda uu aqbalo markii shuruudahan hore ay soo buuxiyaan وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم انتان كبحن إلهي وحان نووي دينا يا إلا دعيست وذكر الله أخرية والتوفيق توفيق بس إله نوافجه إله توفيق ذا نوافجه قف حالك وقت بدن هيستا إلهي عن حسين وقت بدن هيستا إلهي عن ويدي سنين عدكر وح ويدي سنايا بقر محمد ويدي سنايا marka dadka la u tagta wax weydiisanaysa ku nacayaan weydiiska badan xitaa ku nacayaan unless wax dad u weydiinaysa ama sadaqa wax u weydiisanaysa taas waa loo baahan yahay isaga ama masaajid ha ahaado ama dad kale oo masaakiin wax u weydiisanaysid ama maaragtay qof si dhiban si gooni ah u dhiban sida dadka oo kale xanuunada khaaska ah oo kale wax loo weydiinayo taas waa loo baahan yahay bal waa waajib waaye sababta suuratu الماعون يا كهرشة الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين كان أودتك صدقة عن كبورين أبا أيا أبو حلالية مروا ما يصنع آخره محمد أمر يسكن عن وحب حنين مركا
waxaa la rabaa qofka muhiimka ah inuu dadka ku booriyo sadaqada inay bixiyaan درسي كلام كجاه لدونا أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن أدعينا يا دتك فيديو كان فافية أو كبوحة معلومات كسابس مجعي وينا إلهي اللي برياي أو هدي إلهي اللي بريه إلهي وأقبلاي ما دام ما ركتي أن فافاهناي أن سوكو كوبني قفكي فافية أدعينا يا إله قفكي عجلة فافية مركي سو جارت إله عرب كيس كوقتم لا إله إلا الله محمد رسول الله إله وحي عليس هاي قف كاسي إله مركيبة كقات إله فرج أفر إله هدو بزنس لي هاي بزنس بركيسن أو فائدة بضن أو حلال إله كيال هدو قف كاس عرور لي هاي عرور باريال إله عرور تويل هدو حاس لي هاي إله حاس كيس باري ودك هدي إيضا نين لاب هاي إله نين كذا باري ويل يومد إلهي سبحانه وتعالى كحرايو oo jannada u dhaweynaya ilaahu ka yeel haddii qofkaani uu yahay qof kurba haysato ilaahu kurbada ka qaad hadduu yahay qofkan qof wax khaasa ilaahay weydiisanayo oo muddo uu sugayo ilaahu markuu bahashaan uu dirado ilaahu waxay si markiiba ilaahu sii ilaahu albaabada khayrka oo dhan u wada fur albaabada sharta oo dhan ka wada ood wa aqulu qawli hada wa astaghfiru li wa lakum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.